بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكوسو دوادا مركلي برنامج gaara aan ku eegi doono gurigan oo shirkadda Imara Luxury Homes ay ka dhisayso xaafadda Kilimani waxaan u mahad celinaynaa oo garabkayga taagan Sheikh Nuur Xaaji Ibrahim ku soo dhawow Somali Cable bal faahfaahinayga si gurigan aad ka dhisaysaan xaafadda Kilimani oo ku sugana ما شاء الله عبد الله واد ما صنتهاي وان السلام يا دمان بهدين Somali Cable صارت waxaan joognaa projectigi xaafadda aan ka wadnay Kilimani projectkan Allah magac baxay Imara Heights gurigan oo magaciisu yahay Imara Heights saad aragtaan wuxuu ku yaalaa meel qurux badan oo magaraysan u dooray xaafadan wadada ka dambaysa Den Street State House kana dhankan ka soo amidig تقريبا أجرت قفك هتو هالك كله جاي إلا مقارنة ستيت هاوس كا وأفر دقيقة يوقف وصعنا يا كورين عبد الله وحن مقارنة ساكن سينا حافظة عن ليش أجمعي كورجا مجلس يا إمارة هايتس وحوك كوبية هي لبقول يقول شغالة صدق قول يقول شغالة أفر قول يقول شغالة شن قول بولية دبل كسا كورجا نحكي المال هذه هذو قيمة بدن waxyaabaha uu kaga duwan yahay projectiyada oo dhan ee laga dhisay Nairobi waa guri afartiisa dhinacba view haysta way afartiisa geesba waa guri view haysta oo dhan walba oo ka doorato ama aad ka degto aad ka helayso view kugu filan meel naacawle aad ka helayso waxa weeyaan xagga guriga dawladeed baa ka xiga oo gaagaaban xaggan Kilimani Hospital baa ka xiga xagga guriga gaagaaban oo dhisan baa ka xiga gurigan wuxuu ka koobnaan doonaa hadii la yiraahdo 15 dabaq marka waxaanu uga faa'iideynayna cid walba iyadoon cidina isku qabsanaynin cidina cid ayna lahayn garanaysaa view-gii baa cid kale laga siiyay qof walba si degan oo xasiloona ayaa wax uu helaya view qurux badan iyo naacaw qurux badan Sheikh Nuur marka gurigan muxuu lahaan doonaa adeegyada uu lahaan doono oo dadku ay ka heli doonaan muxuu yahay oo ay ku dooranayaan gurigan hadii iibsadaan ma sha Allah Abdullahi gurigan wuxuu yeelan doonaa dhammaan asaasiyaadkii looga baahnaa guri inuu yeesho oo dhan buu yeelan doonaa waxa ugu horeeya goobihii cibaadaadka ugu horeeya masaajid weyn baa uu leeyahay madarasa buu leeyahay gabdhiyo wiilal loo kala dhigayo generatorkii buu leeyahay CC camera 24 saac buu leeyahay ceelbiyood buu leeyahay security iyo managementiga oo wanaagsan buu leeyahay dhammaan asaasiyaadkii guriga uu lahaa oo dhan ayaa gurigan uu leeyahay insha Allah iskuul iyo waxbarasho ka waran area-dan Abdullahi Ustaad ogtahay xaafadani waxa weeyaan waxyaabaha kale ee gurigan si khaas ah u leeyahay waxa kamid ah horta iskoolada guriga ku xiga waa iskool weyn ilaa 8 iskool baa intan area-da ku taala state house kiba magaranaysa in wixii wax walba gurigan wuxuu la wadaagayaa haday biyaha haato oo sanitationkii biyihii magaranaysa water supply-gii hadii light-kii ahaado wadooyinkii waxaas oo dhan wuxuu la wadaagayaa magaranaysa state house-ka waa wax 24 saac joogto oo looga baqayn inay qadar ribi mooyee ay magaranaysa ay ka go'aan insha Allah gurigan marka ma kamid yahay guriyaha aad ku iibinaysaan qiimo dhimista oo aad macaamiishiina ka faa'iideysan karaan Abdullahi gurigan waxa noogu talagalay maadaama meel qaali oo qiimo badan ku yaalo guri qiimo badan leeyahay hal chance baan bixinaynaa hadii la yiraahdo oo bishan ma garanaysaa ay xajka oo noogu talagalay qiimo dhimis boqolkiiba ma garanaysaa 20 ah wixii ka dambeeyana uu istaagayo aanu rabno inay ka faa'iideystaan dhammaan walaalaheena qaba baahi guri u baahan oo baahi guri qaba inay kaga faa'iideystaan bishaas xajka gurigan hadda asaasiyaadkiisii waan soo kicnaa waad aragtaa waan dhex taaganahay shaqadiisu waa joogto 24 saac uu shaqeynaya hadii la shaqaaluhu way shaqeynayaan chance ka yarka rabnaa dadka inaan uga faa'iideyno biidnillaahil kariim maadaama hada Kilimani aan ku sugannahay dad badan oo naga daawanayo qaybo kala duwan oo Soomaali ay jiraan oo dabcan aan garanayn qaarkood Kilimani waxa ay tahay bal sifee hadii lagu dhaho bal ka waran maadaama madaxtooyadii Kenya halkan ay ku taalo xaafadan aad sheegtay xaafad qaali inay tahay bal qofka rabo in caruurtii qurbiga oo kala soo cararo hadana rabo in meeshii ay ka soo tageen meel la mid ah oo ilmihii soo dejisto bal ka waran insha Allah Abdullahi waad ma santahay xaafadan Kilimani horta waxay ku taalaa magaalada Nairobi wadanka Kenya si guud oo wadanka Kenya weeyaan gaar ahaan magaalada Nairobi khaasatan xaafadan la dhaho Kilimani iyo Heligham nimba sidoo u garanayo state house-kii baa halkan naga xiga oo gurigii madaxtooyada ah wadada dhanka ka marta Den Street baa la dhahaa gurigu waa corner block laba wado buu haystaa oo laami oo dhinacyada ka maro corner block-ga afartiisa jihaba view buu ku leeyahay hospitaalkan hadda ay ugu xigaad aragtaan waa hospitaalka weynaa ee Kilimani Hospital weeyaan iskoolkii weynaa kale Kilimani Hospital high school baa kana iskool weyn oo kale dhanka naga xiga jiro oo la dhaho
iskoolka gabdhaha dugsiga sare iskoolka gabdhaha la dhaho mid wiilashu gaar u dhigtaan oo dugsi sare xagga naga xiga waa xaafadda ugu iskool badan ee ugu hospitaal badan ee ugu moolal badan baa ka yaala Kilimani mool baa ku yaala Chaka mool baa ku yaala Yaya mool baa ku yaala boqolaal mool oo magaranaysa areadan gurigan oo haysta baa jira insha Allah adeegyo fara badan oo gurigan uu leeyahay baa jirta marka qofku wuxuu ga maarmaa walwalkii badnaa oo ahaa diin Kilimani carruurta la soo dejiyo dugsi quraankii iyo masaajidkii iyo ilmaha ma helayaan marka gurigan qofka iibsado arintaas waa uga maarmaa Soomaa ilaahay qofka uu waafajiyo ilaahay u fududeeyo gurigan wuxuu ka helayaa wax walba guriga gudihiisa ka helayaa ma laha dukaano fara badan oo buuq badan ma leh hotel hoose oo buuq badan oo dadku isku yimaadaan oo qaylo badan ma leh wuxuu leeyahay goob cibaado meelihii goobihii dabaashii buu leeyahay meeshii carruurtu ku ciyaarayeen oo cagaarkii ah buu leeyahay wuxuu leeyahay kala madrasada iyadoo kala qaybsan hal mini market oo loogu talagalay dadkan inay ka tukaameystaan garanaysaa dabaqan degan apartmentiyada degan halka mini market iyo hal clinic oo yar kaliya loo sameeynaya wax dukaan oo loo sameeynaya ma jiro wax ganacsi oo loo sameeynaya ma jirto si degan oo xasiloona ayuu guriga ma garanaysaa iyo qofka gataaye ilaahay calaf ugu daray ayuu ka helayaa insha Allah ugu dambeyntii gurigan qorshihiina meeqa sana ayaad rabtaan inaad ku soo dhameysaan oo aad asaga dhan ku taagtaan oo dadku ay ku soo digi karaan maxaasa fursada u haysaan dadka macaamiishiina ugu dambeyntii Abdullahi waad maasantahay gurigan qadar rabi mooyee wax walba horta waa qadar rabi weeyaan laakiin anaga ku talagalka anaga saad u jeedaan ismihii baa socda shubkii baan shubnay gurigan culayskiisu waa asaasiyaadka basementiyada weeye taqriiban waxaan ugu talagalay 2 sano inaan ku gabagabayno hadda dhowr bilood buu socdaa laakiin 2 sano inaan ku gabagabayno ayaan ugu talagalay guriga aad u maasantahay oo ku mahadcelinayna waad maasantahay Abdullahi ilaahay baa maad u sugnaatay tagala guriga waxa lagu iimayna 2 qorshe weeyaan qorshaha koowaad waa 3 years payment plan oo qofka aan uga faa'iideynayno waa 3 sano oo qofku iska yaraynayo asoon culays dareemin deyn dareemin dhibaato dareemin lacag badan ayna ka bixin ayuu qofku kolba sidoo awoodo iskaga bixinaya 3 years payment plan fursadda labaad ee dadka ugu yeerin waxa weeyaan waa cash gurigu intuu garanaysaa payment plan-ka uu yahay waxa weeyaan 50% oo boqolkiiba 50 oo discount ay buu leeyahay haduu cash la baxayo qofka cash kala baxaya waxaan siinaynaa 50% discount ah qofkii kale ee cash aan hayninna inuu iska yaryareeyo oo bil walba wax yar iska bixiyo oo 3 sano iska yaryareeyo xitaa haduu gurigu dhamaado oo furayowga la bixiyo qofkaas waxaan u suurtagalaynaa furiisa soo haysta lacagtiin wax lagu shireeyay inuu iska yaryareyn karo insha Allah waxaan leenahay dhammaan walaalaheena baahi guri qaba anagu bishaaraynayna aanu u laleynayna insha Allah hoygu waa muhiim hanti yeelo hoygu waa muhiim hanti yeelo waxaad heli doontaa guri dad culamaa oo culimadiin Soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan oo ammaano leh waxaan idin leenahay soo dhawaada dhamaantiin assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام أدينا هذا أو ما صنتهاي وكان بعد علينا جود هنا داود يعني تسيان كسو جبينينا waxaan ku sugannahay gurigan oo shirkadda Imara Luxury Homes ay ka dhisay saxaafadda Kilimani oo ah waxaana halkan u dhow madaxtooyada Kenya waxay ku taal gurigan uu ku yaala meel istiraatiiji ah oo deegaan ahaan halkan way ku habboon tahay waxaana kala soo xiriiri kartaan numberkan shaashadeeda kaga muuqda Sheekh Nuur ayaana mar walba diyaar idinkugu ah su'aalaha aad qabtaan oo dheeriga ah oo barnaamijkan ka baxsan haddii aad doonaysaan isaga ayaad kala xiriiri kartaan dhanka farsamada kaamiradu waa Ilyas aniga Cabdullaahi Axmed Alin Sodsiinay dib intaan kulmi doono barnaamijkan la mid ah sidaas iyo nabadgelyo bismillaah alxamdulillaah waan idin salaamayaa dhammaan muslimiinta caalamka ku nool oo dhan salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan idinku bishaaraynayaa shirkadda Imara Luxury Homes ee dhismaha idinka wada magaalada Nairobi guryaha apartmentiga ah xaafadda Kilimani iyo xaafadda Backland oo shaqadii meel fiican ay marayso chancekiina weli ay ka bannaan yihiin wax yar oo kooban ayaan waxaan leenahay cid walba oo baahi guri qabtay inay ka faa'iideysato fursadaas labada project ee aad iyo aad qaaliga u ah projectiga The View la magac baxay iyo projectiga Imara Heights ee ku yaala xaafadda Kilimani xaafadda Backland waxaanu idinka wadnaa wadada City Park Drive 6th Avenue waa guri aad iyo aad macquul ah dhowr iyo 10
dabaq ka kooban 13 14 waxaan ka banaan fursad ah ugu yaraan 25 ugu badnaana 30 boqolkiiba inaad magaranaysaa ka faa'iideysataan cid walba oo baahi guri hayso ayaanu idinku bishaaraynaynaa gurigaas waxa uu ka kooban yahay backland ku yaala 2 qol qolkii shaqaalaha fadhigii qayb uu leeyahay qaybadiina uu leeyahay 3 qol iyo qolkii shaqaalaha 4 qol iyo qolkii shaqaalaha 5 qol oo duplex istursaara buu leeyahay adeegyadii asaasiga ah oo dhan baa inta u dheer clinic buu leeyahay minimat buu leeyahay dabashi buu leeyahay meel yar oo carruurtu ku ciyaarto buu leeyahay masaajid weyn oo ugu yaraan ilaa 700 qof loogu talagalay inay ku tukadaan buu leeyahay marka waxaan idinku bishaaraynaynaa idin sheegaynaa inaad ka faa'iideysataan dhismahaas quruxda badan iyo guriga qiimaha badan insha Allah amaano iyo caaqiba leh waxa shirkadda gacanta ku hayo iska leh dad culimo ah waa shirkad aan riba lahayn waa shirkad jeebkeeda wax ku dhista waa shirkad amaano leh marka waxaan leeyahay dhamaantiin cid walba u baahan ama hawmi iyo hawo guri ay ku jirtay inay ka faa'iideystaan fursadda qaaliga ah. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.